taariikhda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa mid ka mid ah hantida ugu faca weyn oo ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed waa hanti maguurta iyo xasuus ku keedsan dadka garan kara qiimaha ay leedahay 12 Abriil 1960 taariikhda xoogga dalka Soomaaliya waa arin markasta oo laga hadlayo ay kaaga dhax muuqanayso sharaf karaamo magac wanaagsan geesnimo iyo guulo ay u soo hoyeen ummadda Soomaaliyeed isla markaana markaad dhinaca kale ka eegto iyo sida ay hadda yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aad dareemayso murug nasiib daro ku dhacday ciidanka xoogga dalka iyo masiibo qaran oo u baahan xal degdeg ah waajibka xoogga dalka Soomaaliya waa inuu difaaca dalka Soomaaliyeed kana difaaca dhinacyada cirka badda iyo waliba dhulka isagoo ka difaacaya cadow kasta oo isku daya inuu ku soo xadgudbo gayiga Soomaaliya xoogga dalka Soomaaliya waxa lagu amaanaa oo ay difaaci jireen calanka ummadda Soomaaliyeed xubin kasta oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya marka uu ku soo beerayo ciidanka waxa uu ku dhaartaa in uu difaacayo dalkiisa una horeeyo naftiisa xubin kasta oo kamid ah xoogga dalka Soomaaliya waxa lagu maamuusay in uu xirto calaamad ka samaysan calanka Soomaaliya dalkayga xaasha lillahi nacabso xaluushiyo cadowga xoreeye xinjirtiisa dhigiyo xaqaygu difaaco xoogga dalka Soomaaliya waxaa la aasaasay 12 Abriil sanadku markuu ahaa 1960 wuxuuna ka kooban yahay ciidamada lugta badda iyo waliba cirka markii ay Soomaaliya qaadatay xornimada 1960 waxa ogolaansho ama fasax ka heshay qaramada midoobay si ay u dhisato ciidamo ilaaliya xuduudeeda waxa ciidamadii ugu horeeyay ee Soomaaliya dhisato laga kala keenay labadii qaybood ee ka xoroobay gumaysiyaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga taliyihii ugu horeeyay ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya uu yeesho waxa uu ahaa Allah u naxariistay General Daawud Cabdulle Xirsi ku-xigeenkiisuna waxa uu ahaa General Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa u mahadceliyay saraakiishii u soo dhabar adeegay dhismaha ciidanka xoogga dalka waxaana sidoo kale sheegay in imika la joogo xilligii dib loo soo nooleyn lahaa tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya saraakiishiisa iyo saraakiil xigeenkiisa iyo arifleydiisa iyo dableydiisa jadiidka iyo xaasaskooda intaba waxaan leeyahay hambalyo taariikh dheer oo la soo sameeyay oo dad aad iyo aad annaga nooga horeeyay aabbayaashii naga horeeyay horteen hadday ahayn siyaasiyiin iyo hadday ahayn saraakiilba soo dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aad garanaysaan magaca iyo maqaamka ay ku leeyihiin ummadda Soomaaliyeed dhexdooda muddo dheer markii ay ilaahay oofsaday oo ay dhinteen kadib waxay tilmaam u tahay muhiimadda ay ciidankaani u leeyihiin ummadda Soomaaliyeed guud ahaan maantana waxay joogtaa mar labaad oo taariikhdu ay samaysmayso haddana oo ay tahay dad badan inay ayaguna taariikhda ku galaan dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 1976 waqtigaas oo dowladda Soomaaliya ay si qarsoodi ah ugu diyaar garowday dagaalkii Soomaali galbeed ayaa waxa ciidamadii lagu qiyaasay tiradoodu ay gaareysay 23 guuto oo ciidanka lugta ah 2 guuto oo ciidanka commandoska ah 2 guuto oo taangi ah 9 guuto oo madaafiicda goobta ah 4 guuto oo ciidanka difaaca ah ciidanka cirka diyaaradaha Soomaaliya waxay ahaayeen 52 diyaaradood qaybaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sida qaybta 6aad ee magaalada Baydhabo qaybta 21aad ee magaalada Dhuusamareeb qaybta 62aad ee magaalada Hargeysa saldhigyada waxay kala ahaayeen 43aad ee magaalada Kismaayo iyo 54aad ee magaalada Garowe ciidanka badda saldhigyadiisu waxay ku kala yaaleen magaalooyinka Muqdisho oo Banaadir ah Kismaayo oo Jubbada Hoose ah Berbera oo Waqooyi Galbeed ah maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 12 bisha Abriil sanadkan 2016 waa sanad guuradii 56aad ee ka soo wareegatay aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya haddaba waa sidee xaaladda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ma helaan xuquuqdoodii aasaasiga ah waxa ka doortay dawladda waxa u dhigtay dawladda 24 saac u dhaawacmay 24 saac u taagnay
هوجي وحباب أنا حياتي ريسكي أنا وجري مالشي أنا كربي ما أنت أنا لبسنا من عيدا عندين إن الله في يوم أنا يكسري أنا سامحي إذا ما حقوق الدلك الصوماليات بعنا وعوي حقوق ضيادي يا مغن أنا قبل حقوق الدلك الصوماليات وحن دونينا حقوق دي حق الله هيني وحن ربنا إن لا تعقليو أو نلقى حشود ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa haatan helin xuquuqdoodii aasaasiga ah sida helitaanka mushaaraadkooda daryeelkooda ka warqabka iyo sidoo kale horumarinta shaqooyinkooda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sanadihii dambe waxay saaxiib la noqdeen daryeel la'aan iyo xaalado adag iyo sidoo kale inay ku shaqeeyaan daruufo aad u adag madaxweyne walba oo dalka hogaamiye ka noqdo waxa uu ballanqaad aan afka dhaafsiisnayn u sameeyaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya عدويga xoreeye xinjirtiisa dhigiyo xaqaygu difaaco عدويga xoreeye xinjirtiisa dhigiyo xaqaygu difaaco